xaflad si heersara loo soo agaasimay oo abaalmarin lagu guddoonsiinayay sanad walba dadka sida howlkarnimada uga soo dhaxbaxa bulshooyinka kala duwan ee ku nool wadankan Britain ayaa lagu qabtay hoolka St George ee ku yaala bartamaha magaalada London. xafladan oo ay ka soo qayb galeen madax sare oo ka socota dawladda Britain iyo waliba baaruga saddex oo abaalmarinta bixinayay iyo dadkii la siinayay iyo waliba dad lagu marti qaaday. waxaana xafladaasi si weyn uga hadlay mas'uuliyiin kala duwan oo dhammaanba xusay dadka kala duwan oo jinsiyada kala duwan lahaa oo markaasi qabtay hawlo lagu faani karo. dadka abaalmarinta la siiyay ayaa waxaa ka mid ahaa nin dhalinyaro oo lagu magacaabo Cabdullaahi Cali Maxamed oo la sheegay inuu yahay nin hawlkar ah isla markaasna wax badan u qabtay bulshada Soomaaliyeed oo ka soo jeeday iyo waliba dadka Islaamka ee ku dhaqan baaroogaas lagu magacaabo Satag. ay sheegeen Cabdullaahi Cali Maxamed inuu soo hayay hawlo kala duwan oo bulshadaasi wax loogu qabanayo dhinac kasta ay tahay isagoo ka caawinayay hadba markaasi dadkaasi waxay u baahan yihiin. Cabdullaahi Cali Maxamed oo nin dhalinyaro u taagan xilka madaxtinimada maamul goboleedka Ximan iyo Xeeb ka soo qayb galay inay waxa ay sheegeen inuu yahay nin u qalma in la siiyo abaalmarintaasi iyagoo ku macneeyay hawlihii kala duwanaa iyo hawlkarnimadiisa. haddaba anagoo weydiinay siyaabaha kala duwan abaalmarintaasi loo siiyay ayaa mas'uuliyiintii kala duwanaa ka soo qayb galay xafladaasi oo kala ahaa kuwii baarooga Satag dawladda Britain iyo waliba xubno ka socday boqortooyada dalkan Britain ayaa dhammaantoodba waxay xuseen inay yihiin dadkan la siiyay dhammaanba abaalmarinta dad aad u wanaagsan oo hawlo la taaban kara qabtay gaar ahaan Cabdullaahi Cali Maxamed oo ah nin dhalinyaro oo dadka bulshada Soomaaliyeed si weyn uga soo dhaxbaxay. haddaba waxaan la dhex qaadnay makarafoonka kaamirada isla markaasna waxa aan dad kala duwan weydiinay bal siday u arkaan abaalmarinta Cabdullaahi Cali Maxamed la siiyay iyo waliba waxyaabaha kala duwan oo qabtay. waa mahadsantahay kulli saad aragtaan abaalmarintu waa abaalmarin aad maanta loo aad weyn oo aad loo tixgelinayay waana shaqo aan soo haynay muddo dheer ma aha waxaan maanta sanad iyo 2 sano ku sameynay waa wax muddo aan ka soo shaqeynayno ugu yaraan 7 sano aan ka shaqeynayna xaafadda waana aragtaa hadda recognition waxaan ugu sameeyay leaderka councilka representative-ki oo queenka ninkii booliiska haystay mayorkii xaafadda deputy mayorkii ummadii oo dhan aan la shaqeynayna waqtigaas dheer aan shaqada ka haynay xaafadda oo aan u shaqeynayna muslim community-ga especially Somali community-ga aan u shaqeynayna maanta ayaa waxay soo baxeen miraheedii oo ay mira dhashay oo dadka xataa ay aqoonsadeen inaan shaqo adag ka hayno xaafadda. I'm Harriet Harman. I'm Member of Parliament for Camberwell and Peckham. Today has been a very important day for Southwark here at St George's Cathedral, and the awards have been given out to associations and individuals who've made a particularly outstanding contribution to the life of the borough. It's a day for civic pride, and we're very proud that the Southwark Award has been given to the Somali Community Association.